kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada waraysiga toddobaadka waxa marti iigu ah madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Puntland sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku sugan magaalada Nairobi Cabdiweli oo wada socota siyaasadda Soomaaliya waxba kugu seegana xilli kala guura lagu jira Soomaalida waxa la bartay 4 sanaba in uun hadana doorasho ay dhacdo 4 sano waa dhamaatay doorashada waqtigeedna qallaasa ka taagan bal intaanan u guda gelin doorashada iyo qaabka la rabay inay u qabsanto ama rajada dadka ay qabeen maxaa horta la dhihi karaa waxa laga dhadhansan karay hadalkii ugu dambeeyay ee madaxweyne Farmaajo waa ma santahay Xamdi waan dhawahay inta dhageysanaysana waa salaamaya soon fiican baan loo rajeynay dambe dhaaf insha Allah ilaahay ka rajeynayna maxaa kaaga baxay waxaan oran karaa gabar ciyaarta tubanaysa waxay tiri inay hogum baa tahay golo lagama oran karo hadal gobi ku haasawdo oo la gartana namaad oran waxaan u jeedaa waxa weeye dabcan haybadda kursiga ayaa nafaraysa in badan in aanu xoogaa aanu ixtiraamno oo wax ka sheeg hadda waxa uma u tarayo laakiin runtii khudbadda laga filayay madaxweynaha dhibaatadii dhacday dadkii dhintay qixii dagaaladii dhacay iyadoo Ramadaan ah markaasoo kale qofka madaxda waxa laga filaa dejin waxa la yiraahdo yani humility qofku in uu qof dabacsan dadka u dabacsan u naxariisanaya qaab noocaas inuu yani khudbad xambaarsan mustaqbalka iyo geed socodkana wada fiican oo la aadayo inuu dadka u sheego ayaa la filayo laakiin ma aysan noqon wuxuu madaxweynuhu wali ku jira waxa la yiraahdo kiskawaal waxa la yiraahdo oo wali waxaad moodaa inuu dhabbihii oo runtii la eeday oo keentayba inuu hadda khudbad jeediyo oo aan filayo inuu ka laaban doono ku darsigii uu ku dhawaaqay ama uu saxiixay ayaad moodaa inuu wali dadkii eedaynayo inuu dawladda aanan aqoonin runtii oo ajaanib aanan garanaynin waxa yihiin uu eedaynayo waxaasoo dhani marka waxay ila muuqataa wali madaxweynuhu in uusan fahmin meesha la marayo iyo dhibta dhacday iyo xaaladda qalafsanaanteeda iyo meesha ay marayso inuusan ku baraarugin baa wali moodaa waa gartay Dr. Cabdiweli doorasho marka 4 sano la gaaraba heshiis waxa lagu yahay in doorasho la aado ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka ahayd doorasho hore u soo qabateen qaabkee horta xilligan oo kala guurka ay wajihi jirteen oo wax u diyaarinayseen kala guurku mar walba dhibtiisa iyo shidadiisa wuu iska wataa laakiin marna ma aysan dhicinin xaaladda yani hadda la galay ilaa 2000 waa 20 sano la maraya Soomaaliya ma aysan dhicin maanta in ay keento kala guurku in uu keeno waxyaabo qaar la isku afgaran waayo laga wada doodo laga heshiiyo laga wada hadlo mas'uuliyadda la qaato la isu dhimriyo ayaa lagu waday anigu laba doorasho ayaan ka qayb qaatay 2012 oo ra'iisul wasaaraha iyo 2016 oo madaxweynaha Puntland ahaa marna ma aysan dhicin wax hadda dhacaya 30 sano ka bacdi inay qaxaan aad baan waxa uga helay in la yaraaho dadka qaxaya kamid ahaa marna la wareystay oo yiri waxaan filaynay doorasho cod iyo qof ah laakiin maanta waxaan maraynaa doorasho qof iyo joodari dhabarka u saaran yahay in la qaxo waa dhibaato jirto marka de ilaa xadkaasi wax la filayay lagu talagalay ma aysan ahayn laakiin waxaan ku faraxsanahay dadkii ka hor yimid hawshan iyada ah ama ciidamo ha noqdaan ama ha noqdaan mas'uuliyiin ama ha noqdaan musharaxiin in laga hor yimaado aan la yeelin marna sababtoo waxa weeye tan haddii ay marto Soomaalida ay marto waxay ahaan lahayd presence abuuri lahayd tomorrow mid kasto yimaadahay oo yiraahdo anna waa ku darsanaya 2 sano anna waa ku darsanaya 4 sano marka inaan dictatoriyad dalkan meesha ay dhigtay waa la og yahay tiiheedii baa wali nahaya 30 sano wali ka soo kaban la'anahay marka mid cusub aan aragteedii qabta in la aqbalo dadku ay yeelaan absolutely yani ma mid laga filayna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maaha يعني 40 سنة عمري إن كبدن محمد وحنا كسر قاعد الدبد ودن الديمقراطية أي كتيرته دلك أجوين الديمقراطية دونك أجوين أيوك ودي بقى وإنفولف في كل هالسياسة ده وحزبت هذا كتير سنة أنشري وحزب جد الريبابليك بارتي جا أيو مركان حاجة أنجوبنا وقاد وكتير سنة وقاد فكت جرينشري مركا يعني قفك اللي جف لي أرنت سيادة ما سنة هين لكن أنا سيب درو حصل عائلتها أنا قرنتي
wixii dhici lahaa waa dhaceen wax kastoo dhacanayana yani ilaah baa qadaray laakiin yani waxaan isleeyahay legasigiisiina waa u xumeeyey waqti badanna waa ka dhumiyey Soomaalida hadalkii madaxweynaha waxaa ku jiray in loo laabto September heshiiskii ahaa sidoo kalena waxaa ku jirta in baarlamaanka haddana sabtida la yimaado heshiiskaas khilaafkii ka dhashay waa waxa dagaalka sababay waad arkaysay madaxweyne Dani Axmed Madoobe oo kale maamul goboleedyada xataa hadda ugu dambeeyay waa kuwa ogolaadeen in doorashadii dhacdo sidee la isku qabadsiin karaa in doorasho shuruud la'aan ah oo September go'aanka loo laabanayo iyo in baarlamaanka haddana uu leeyahay hal yimaado sabtiga maya horta meesha sidee muuqata baarlamaan mas'uuliyadiisa qaadanaya ma joogo baarlamaanka waxa weeye ra'iisul wasaarihii dalka 7 daqiiqo ku eriyay iyagoon dhageysan eed loo soo jeedin xataa iska difaacin oo soo jawaabin baarlamaanka waxa weeye yiri iyadoo wax dooda iyo ajenda ah oo laga dooda aysan jirinin gacanta loo taagay waxaan ku darsanay 2 sano marka waxa ii muuqata baarlamaan la yeeshay weeye baarlamaan marka waxaan maranayaa hadii berito sabtida duu tago waxaan maranayaa isna sidoo kale ayaa dhowr daqiiqo waxa la oranayaa madaxweynuhu waa ka laabtay labadii sane gacanta u taagay taasi gacanta u taagi doona say aniga la tahay weeye wax kale ay samayn karaan ma jirto sababtoo ah wadada la aaday way soo xirantay dhiig baa ku daatay qax baa ka dhacay marka inay aadayaan aqligooda leeyihiin anu u malayn mayo waxa laftirkeeda ku sii adkaystaan waa nasiib darro ayaga laftigooda ayagu marka waxay noqonayaan waxaan sharci ku fadhiyin bay noqonayaan marka Soomaalidu marka inay si kale u tashato oo meel kale laga aado ayay noqonaysaa waxa dhuminayaan legitimacy waxa dhuminayaan credibility waxa dhuminayaan wax kasta oo yani hay'adaha dastuuriga ah xaq u lahayn dhan bay dhuminayaan marka waxa waaye niman dhicna fowda dad ma ogtahay oo Mooriyaan meel fadhido oo fowda ay u ekaanayaan noqonayaan laakiin waxaan ka rajaynayaa in aqligu shaqeeyo يعني رمضان بنا لو جرى dadka ay u turaano wax wanaagsan ay keenaan taban waxa weeye waxay ka laaban doonaan sida aniga la taasubtida isaga tagi doona khudbu jeedin doona wadadii la aadin xirantu sheegi doona ka bacdina in jika kale la aado ayaa la isku raaci doona taas waa taa arinta 17 October 17 September iyo 16 February waxaan qabaa hadii ay tahay markay heshiis siyaasadeed buu arintaas oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku heshiiyeen heshiiskaasi in loo fuliyo waa qabaa kow maadaama marka heshiiska ka bacdigi oo مثلا February markii ay dhacday goorma 19 May 19 ay dhacday xabadayntii dadkii iscayrsiga u dhacayay aan u jeednay oo musharaxiinta la weerarayay kalsooni darro timid arrimaha ugu muhiimsan marka waxa weeye hadda aad la rabo in looga baaran dogo looga hadlo waxa kamid ah anigu aan aaminsanahay kula doorashada badanaa wax ka dhici doonta gobolada ka dhici doonta madaxweynayaal baa jooga haddii qoorqoor iyo maxaa la yiraahdaa guurlaawo iyo lafta gareen ay maxamed farmaajo rabaan inay u soo dhacaan doorashada dabcan marka waxa weeye dadka gobolada degan bay u taala arintaas sida ay uga hortagi lahaayeen laakiin 17 in la aado September February la aado arrimo ugu muhiimsan oo raba in laga taxadaro waxa kamid ah mesela doorashada lagu qaban doono xamar ee gobolada waqooyi taa waxaan aaminsanahay in sida yani uu nidaamku yahay sida mas'uuliyadu ay farayso in gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo arintaas garwadeen ka noqday ayaa la rabaa si dadka ay kalsooni ugu muuqato in markaad waxa muuqday maxamed farmaajo madaxweynuhu wuxuu muujiyay oo cadaatay in uu rabo in doorashada boobo la wax kala isku hortaagnay waa boobaya iyo ma boobay sidoo weey marka kalsoonidii isaga dhumiyay lagu qabilaha waana musharax madaxweyne weey marka ana budodeeda tumanaya gaar u tumanaya oo idinkuna marka waa inaad yani korjoogada ka noqotaan ciidanka yeelanayso marka waxaan aaminsanahay in badan in la dibciyo aan aad loo adkaynin oo xujooyin aan meesha jirinin aan la gelinin waan qabaa oo laba dhinac ka yimaado laakiin ay doorashadu u ekaato doorasho legitimate ah oo sharci ah doorasho credible ah oo loo qaateen ah doorasho acceptable ah oo dadku ay aqbali karaan ay leeyihiin Allah ilaahay doorasho sax ah ayaa noo qabsoontay taadiisan jirin wixii ka soo baxay waxay noqonayaan wax shuuba ku jirto lana aqbali mayo laakiin dib kala jirta waxaan ku sheegayaa in xamdi maxamed meesha uu gaarsiiyay hadda oo damici waxa weeye waxa uu raba inuu gaaro iyo damiciisa iyo qaabka iyo dariiqa u marayaahi mid gaarsiinaysa maaha sababtoo amaanta haddii madaxweynaha loo doorto si xalaal ah
la yidhahdo fair and square si sharcigu ku soo baxay xataa haddii la yidhaahdo maanta si 4 sano oo dambe maxamed usoo xukumi kara dalkan meesha uu wax gaarsiiyey isagu iyo kulka iyo temperatureka iyo kalsooni darrada meesha ay marayso anigu umalaynaya inuu awoodi doono xataa inuu sii xukumo waa gartay haddii la yidhaahdo heshiiskii 17 September hal aado oo lagu soo heshiiyo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya halkan waxaa taagan iyagana siyaasiyiin musharaxiin ah oo mucaarad ah laftirkooda intay fursad ka helayaan maxaa dooray lahaanayn dama waxyaabii hadda laga doodiyay kamid fiiri waxa loo baahan yahay si doorashada loo aado horta kalsooni la abuuro kalsooni la'aan waxa ku xiga waa qarax iyo isdil iyo dhibaato way marka kalsoonista loo abuuro waxa kamid ah waa in la koobt gareeyaa dadka xaq bay u leeyihiin in ay waqtiga fiiri waxa la rabaa the rule of the game sharciga lagu dhaqayo rulka waxa lagu dhaqayo ciyaarta waqti fiiriga qaabka loo sameeynayo waxa la rabaa in ciyaartooyda labada dhinacba ay u arkaan inay mid ay tahay cadaalada oo fair ah saadaradeed xaq bay u leeyihiin inay hadalkooda jeestaan ay yiraahdaan tanna waa ongol lahay tan wax baan ka qabnaa sababtu waxa weeye madaxweynuhu waa musharax ina waa musharaxiin marka ciyaarta the rule of the game should be fair in cadaalad noqdo la rabaa saadaradeed waxa loo baahan yahay in wixii ay qabaan oo kalsooni darra laga shaafiyo la fariisto oo mataqaan la hadlo of course waa meesha ku jirta waxyaabaha loo baahan yahay in intaan doorashada la aadin in la xaliyo u baahanta oo abuuri karta kalsooni hadda waxaan u jeeday ra'iisul wasaarihii iyo waxa wada fadhiya xalay musharaxiinta qaarkood waa kalsooni abuurid weeye marka waa gartay ra'iisul wasaaruhu wuu hadlay wuu soo dhaweeyay heshiiskii ay sameeyeen maxaa la yiraahdaa galmudug iyo hirshabeelle siyaasiyiin badanna way hadleen adduunyada laftirkeeda way hadlaysaa weli ciidamadina meeshay joogaan is hor fadhiyaan oo saacad kasta wax dhici karaan waxaad moodaa ciidamadii laftirkooda in la siyaasadeeyo siyaasadda ay ku milmeen oo labadii dhinac ay la kala safan yihiin sidee marka ciidan midaysan oo qaran Soomaaliyeed oo shalay inkastoo ciidankii hadda la isku soo celcelinayo 30 sano burbur uu soo gaaray loo dib loogu celin karaa shalay meesha joogeen okay wallahi waa ma asan tahay waa wax arrin meesha ku jirta way waa nasiib darro runtii madaxweynuhu isaga uu isticmaalay national army oo ahaa yani ciidankii dalka institutionkii waxa ahayd in uu yani uu ka bari yahay oo aan inaba hal leekaatay usan ku lumin siyaasadda weeye shaqadiisuna waxay ahayd in uu la dagaalamo cadowga dalka iyo gudaha shabaabah iyo wixii cadowga xuduudaheena wax ka baxsan inuu ka difaaco laakiin madaxweynuhu national army waxa loo bedelay personal army يعني waxa weeye army qonin leeyahay oo cid suudan u isticmaalo qofku doonana ku dilo qofku doonana ku cadaabo qofku doonana mataqaana ku xiro ku dhibaateeyo ayuu noqday isaga siyaasadeeyay iyo wixii kula talinayayba wax aad u khaldan ah waqti badan bayna soo qaadatay madaxweynaha shirxinta hadda qaarka kamida oo madaxweyne Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyaba waa isticmaali kareen in badan oo ciidamo xilligooda rabaan ma fahamtay in badan oo kamidana waa yani heerahooda way isticmaali karday rabaan laakiin ma dhicin sababta waxa weeye nidaam ma ahayn saxna ma ahayn sharcina ma ahayn marka hadda ciidankii qaarkii isagu isticmaalayna wadanka gudihiisa joogaan kuwii kale oo raba inay difaacaan sharciyada iyo nidaamkana iyana meeshii bay joogaan waxa weeye dhufaysa u qodanin marka waxa weeye haddii dhufays in la wada baxay noqonaysaa madaxweynuhuna ciidankii uu ka keenay galmudug ee ku ka keenay shabeellada dhexe iyo beledweyne iyo ku ka keenay gado inuu ku celiyo ciidamadu inay shaqadooda qabsadaan kuwa kale marka ayagu hay nidaamka inay difaacaan waana ku maasay inay difaacaan sababta waxa weeye marka qaarkood hadda waxa weeye fiiri violence waxa la yiraahdo yani cabsida iyo la dagaalanka qofka in cabsi geliso dagaal violence-ka waxa kale ah oo la soo celin karo is another violence way okay waxa weeye dagaal iyo hadda midda ila soo aado gacmaha waxa tiraan waxa weeye anna waxa noqonaysaa anna aan midda soo qaatin noqonaysaa marka waxa la rabaa madaxweynuhu hadda laan waxa uu fahmaya oo uu kaga laabtay mudakarorsigii iyo damicii waxa weeye cabsi kaga timid ciidanka xamar yimid iyo waxa soo wajahay marka madaxweynuhu aslong uusan arkin credible force xoog ka soo horjeeda isaga oo xoog u isticmaalaya wajihi kara waxay la talaftigiisu inuusan wadada sax qaadan doonin marka waxaan qabaa haddii la laabanayna ciidanku ha wada laabtaan haddii la kalunta doorashada laga aadiyana dee ha wada joogaan
laakiin in la siyaasadeeyo ciidanka oo siyaasad la geliyahay wax meesha ku jira ma ahayn wax aad u khaldan weeye waxaana aaminsan hadda laftigeeda in ay haddii la heli karo ciidanku ay dhammaan ku laabtaan xorriyahoodii iyo dhufaysyadii ay kula dagaalamayeen shabaabka iyo cadowga madaxweynuhuna uusan awood u yeelan dambe uu u isticmaalo ciidanka sidii ciidan shakhsi isagu leeyahay oo suu doonana u isticmaalo waqtigu doonana isticmaalo ciduu doonana uu ku dhibaateeyo waa gartay dr cabdiweli baarlamaanka December ayuu dhamaaday sanadkii hore mas'uuliyadoodii kursigaas ay ku joogeen shaqooyin ay wali wadaan ma sameyn karaan go'aamo masiiri ah oo dalka uu leeyahay absolutely waa dhageysanaysay gudoomiyaha hadda jooga oo runtii aan isleeyahay aad iyo aad mas'uuliyad darra ka muuqata suu u dhaqmay iyo suu u hagay baarlamaanka iyo ku xigeenadiis waxaan ka hadlayaa maamulka nimanka haya oo madaxda ka ah baarlamaanka gudoonka isaga hadalkiisa maalmood wuxuu lahaa ku darsiga baarlamaanku ma sameyn karo sharciyadna uma haysto waxa ku darsiga sameeyay isagu aha marka meeshan dastuur la isticmaalayo iyo dastuur sidiisa uu yahay loo isticmaalaya meesha ma jiro waxa hadda muuqata the rule of the jungle sharcigii moogtahay duurka ayaa lagu dhaqmayaa wuxuuna noqday baarlamaan la yeeshay ama corruption ha lagu yeesho iyo dhaqaale ama cabsi ay ka cabsanayaan hay'adda fulinta ee madaxweynaha noqotay uma muuqato hadda baarlamaanku mid dastuurna yani ixtiraamaya shaqooyinka loo baahdana qabanaya marka waxa hadda qabtaahi waa waxa weeye waa extra legal way wax oo sharci darro ah way absolutely sharci u baasin karaan ma jirto let alone mudokorosia waxa oo kale la sheegay marka wax kasta ay sameeyaan December ka dambeeyay markii ay ka dhamaatay sharciyadu waa غير sharci way kama jiraan waa gartay dad baa ku barakacay hadda qaralaasii dhacay dad baa wax ku gaareen ama ku dhintay ama ku dhaawacmay attentionkii dadka wali waa sidiisii mas'uuliyadaas yaa qaadanay wixii dhibaato dhacay mas'uuliyad waxa qaadanaya the buck stops with the president waxa waaye mas'uuliyadda waxa qaadanaya waa sida loo kala sareeyo loo qaadanaya laakiin mas'uuliyadda ugu sareysahay qofka madaxda isaga madaxweynaha saaran tahay madaxweynaha ayaa ka mas'uul ah wixii dhacay yani dhibtii timid dadkii dhibaatoobay dadkii dhintay kulli aakhirana isaga la weydiinaya adduunkana isaga ka mas'uulaho loo raacanaya wixii dhacay of course يعني ما عيد كلا يعني كل مسؤولية هذا قاضي. لبا أخلان لنا هذا. سنة كي يأخل كي برلمانك. سنة كوا واحد نقول عصب ووكيل هذا دولة قبلات يده أي كم يديسينهن. كراستي دور شمركة مادة سومال لأن أنت بدن كراستي هذا مرن دلسة. عبد حاشم مش وكتاجي هو وجده. محل دي كرا دور كهرتا أوليه. كراست سومال لأن عبد حاشها وأخل كسرة. أوكل اللي حيته بنكي أقل سر متشرين. ساس درعدد مسؤولك ugu sareeya meesha waqooyiga ah wuxuu ahaa Maxamed Cumar Axtaqaari xilliga laakiin because ma jirin marka aqal sare hadda laakiin waxa jira gudoonka aqalka sare labada aqal mataqaana sharci dejinta midkood waxa u sareeya qofka waqooyiga marka dabcan roolka ugu weyn iyada ah isaga qaadanaya midada kale xaga raali ahado saaxiibkay Mahdi laakiin Mahdi qaabka u dhaqmayo uma ekayn nin mas'uuliyadii reewaqooyinimo ka turjumaya laakiin hadalkiisu waxa ka dareemayay wuxuu lahaa mataqaana round koowaad baan ku qaadanay meesha la yiraahdo galmudug iyo doorashadeedii tan ku qaadanay marka de qof u adeegaya madaxweynihii oo aan ka ahayn dhexdhexaad marka ma u muuqanayo nin dadkii matalaya raaliga aado waana saaxiibkay haddana si badan baan hadda qaraabo u noqonay laakiin waxa ii muuqata in uu yani waxaan ka filayay sidaas ka duwan in uu u dhaqmayaan ka filaynay marka Cabdi Xaashi Cabdullaahi doorkiisu leeyahay waa muhiim isna maadaama uu yahay ra'iisul wasaar ku-xigeenkii in ay labadooda inta wada fariistaan go'aan fiican oo dadka qanciya dabcan matalaad dhabah ma jirto oo hadda gobolkii ay matalayeen ayaga waa goosanay oo dalka ka maqan marka laakiin awalba xamar baa lagu si la sugu hayo dadkii marka Cabdi Xaashi doorkiisu leeyahay midda kale Cabdi Xaashi wuxuu ku sifoobay oo dad badan oo Soomaaliya ku yaqaanaan inuu yahay nin oday ah oo macquul ah oo wise ah oo caaqil ah oo wadani ah ayaa runtii dad badani ay aaminsan yihiin anna aaminsan inuu yahay
marka taas ayaa weliba kalsooni dheeraada sii siinaysa isaga in mataqaanaa ku qabaan dadku shalay ra'iisul wasaare ahayd shuruucii baarlamaana sidaan kale la shaqaynayseen maxaa baarlamaankan hadda uu kaaga muuqdaa ugu dambeeyey wallaahi horta baarlamaanka doorkiisii shaqo fiiri marka la soo xuleeyey waxaan xasuustaa fikirkan ah in konton qof soo doorato dadkii proponentskan ka mid ah anigu dadkii ugu waaweynaadoo arrintaas keenay baan ka mid ahaa waxaan islahayn baarlamaan maadaama oday fikir waxa abuurmay ah wixii la oran jiray oday iga dhig aan xildhibaankaa dhige marka odaygii iyo xildhibaankii ay isku milmeen marka qofkii uusan ahayn qof dad matale ah hal nin kaliya uu soo qoro marka waxaan nidhi ha loo celiya dadka taasaa keentay waxaan islahayn dad matala oo meel ka yimid taasaa keentay inaan awal xamar baa lagu xiri jiray in gobollada lagu soo xuro inay noqdaan dad dalkii iyo dadkii ay ka yimaadeen matala laakiin uma ay muuqan waxay iila muuqdeen runtii haddaan runta kuu sheego baarlamaanka u xumaa ee Soomaaliya soo mara baarlamaanka runtu saas weeye laakiin waxaan ka filayna ma ahayn qaabkii loo soo xulay iyo waqtigii galay iyo wixii laga filayey iyo si hadda u dhaqmeen absolutely wax isla maaha marka waxaan isleeyahay kalsoonida badan oo lagu qabi karaan ma jirto baarlamaankii kulley anu asaan isleeyahayna leadershipkiisuna leadership aad u liita weeye runtii ixtiraam bay iga mudan yihiin saaxiibadaya laakiin runtii in la sheego way say u dhaqmeen iyo mas-uuliyaddii laga filayey ma ahayn ma fahamtaa dog jawaari markii maxamed xuseen jawaari uu baarlamaanka uu nin oday ahoo aqoon-yahan ahoo wasiir soo ahaan jiray oo macallin soo ahaan jiray oo konton sano soo shaqaynayay oo moogtahay yani buu ahaa ma garatay oo hogaaminayay sheekh shariif shariif xasan sidoo kale ciladihiisa ha lahaado dad badan baa wax ka sheegi jiray laakiin aniga suu ila muuqday nin oday ahoo wuxuu ahaa marar badan haddii yani dhibi timaado ama wax lagu qabsado wuxuu ahaa wax lagu qabsan karo maxaa la dhihi karaa hadda 2 sano oo kororsiga ah maxaa dawladda ku kalifay maadaama 4 sano ay joogtay waa xukun jacayl moogtahay fiiri horta qof aan rabin inuu iska sii joogaa ma jirto laakiin maalan maalin waxaan dhegaysanayay Barack Obama oo khudbaynayay 8 sano uu joogay laakiin wuxuu yidhi haddii ay awoodi karo u jeclaan lahaa inuu sii joogo laakiin the institutions xakameeyaa jira waan u ogolaanaynin teeramkiisu laba jeer ma tartami karaa Mareykanka kabacdi ma tartami kartid haddii lagu doorto 8 sano calafsanaysaa marka waxaa la rabay madaxweynaha iyo inta la miday maadaama baasha samada laga qoray ilaahaba qoree ramadaanna waa ku jirnaay waxaa la rabay madaxweynuhu inuu calfo inuu aamino shalayba isaga oo aan qabiil lagu dooran isaga oon mataqaanaa Soomaali doorat marka dadkii shalay doortay in iimaanka lagu qabo oo doorasho la aaday ayay ahayd ku darsi marka wuxuu keenayaa waa un sharci darro la aaday weeye sharci darro haddii la aadana waxay keentay waxaad aragtay qax bay keentay dil bay keentay dhibaatay keentay dhufayso laqotay keentay marka sax ma aha shalay ra'iisul wasaare ahayd ra'iisul wasaaruhu mas'uuliyadda buu leeyahay madaxweynuhuna shaqo uu leeyahay shaqooyinkoodana dastuurkay ku qeexan yihiin hadda doorasho lagu jiraa waliba qalaaso ka dhacday oo dhibaato iyo qax samaysay maxay tahay doorka ra'iisul wasaare Rooble xilligan inuu qaato ay tahay dad badan waxay yiraahdaan ra'iisul wasaaruhu madaxweynaha i magacaabay baan waxaan u noqonayaa daacad kitaabka lagu dhaariyay kuma qorna in madaxweynaha daacad u noqotid shaqada u haata ayaa ku dhaaratay kitaabka gacanta ku martay madaxweynuhu maxamed farmaajo qof baa magacaabay oo sheekh shariif baa magacaabo balansor ka dhigay haddana waa ku day xabadda weerarayay oo marka waxaa la rabaa marka madaxweyne ninka la yiraahdo Rooble waxaa la joogaa saacaddii uu muuqan lahaa waxaa la joogaa saacaddii oo waajibaadkiisu sida u yahay u gudan lahaa waxaa la joogaa saacaddii mas'uuliyaddiisu sida ay tahay uu inta yani geesinimo yeesho uu u fulin lahaa baa la rabaa ma garatay waxaa weeye waa mas-uul dalka iyo dadku mas-uul u yahay nin guriga kama shaqeeyo mataqaanaa inuu daacad ugu noqdo madaxweynaha madaxweynaha daacad ugu noqon kartaa wada shaqeyna ku yeelan kartaan wixii dastuurka ku qoran oo nidaamku yahay laakiin wixii ka baxsan oo qayr sharci ah oo dhib keenaya ma fahamtay waxaa loo baahan yahay in uusan wadada raacin waxaan rabaa in mas'uuliyadiisa qaato haddana ifafaala waxaa iga muuqda inuu diido oo ku bogaadinaya uu ka laabto isaga madaxweynayaashii kale oo muddo korinta ay diideen labadii madaxweyne kale iyo lafta garoon islaftiisu ku raacay marka hadda waxaa muuqata ifafaale waad moodo inuu doorkiisa qaadanayo xalay inuu la kulmay
musharaxiintii waa bilow fiican weeye marka waxaan rabaa anuuna waxaan odhan lahaa hadda maadaama madaxweynuhu musharax yahay shaqada doorashada in mas-uuliyaddeeda uu qaato ra-iisul wasaaruhu waa gartay adduunyadu way hadashay beesha caalamku way hadashay midooda afrika waa hadlay maalin kasta waxaa laga hadlaa in wadankii gacanta uusan ka bixin ciidamada laftigooda inaysan siyaasaddii ku milmin haddana waxaad moodaa in warkooda uusan macno badan samaynayn oo wixii la samaynaya iska socdaan ma dowladdana dowladihii horeeta ka dhiiran oo ka geesnimo badan ma ayaga laftirkooda qayb ka ah waxa socda wadanka maxay warkoodii wax shaqaynaya uma eka horta way shaqaynayaan oo way shaqayn doontaa hadda barasharku wuu shaqeeyey in badan oo waana ku mahadsan yihiin beesha caalamku Soomaaliya way mudday moogtay soo garab qabanayeen soo tantaareynayeen waqtiga dhaqaalaha galay ilaa hadda ayaga masruufa beelo waa maqlaysay waa sii lahaa sixadan ku fadhinaayo lacagtana la ka goostay de ninka bixinaya biilkaaga marka qaarkood inaad dhageysatana waa muhiim laakiin sa hore u sheegay time frame-ka waqtiga anagu aan ku shaqayno iyo qaabkii u shaqeeyaan adduunka kala duwan yahay anagu waxaan jecel lahay saanay sameeyeen khalad bay galeen maxaa markiiba loogu dhufan waay laakiin qaabka uma shaqeeyaan ayagu مثلا maamaha waxaa jirta waxay yiraahdaan why do you use poison when you can kill with honey haddii aad malab wax ku dili karto maxaad sun u isticmaalaysaa marka ayagu malab bay wax ku dilaane يعني oo go'aamadooda ay ku gudbiyaan kuma gudbiyaan sun iyo mataqaano ma soo hormariyaan marka iyaga waxa weeye hadal macaan your excellency waxaan rabnaa intaas samaysid laakiin ultimately markay baraka mala gaarto go'aankooda way qaadanayaan sanctionkooda iyo waxooda ay awalba ay samayn jireen waa samaynayaan laakiin baan ku sheegayaa maanta Soomaaliya dawlad sovereign away inagana la ka reeb inaan muujino mas'uuliyad in aanu mas'uul u noqon karno dalkeenni waxaan uga baahanay AU iyo UN iyo haddii mas'uuliyaddeena aan qaadano oo dadka joogaahay maanta mas'uuliyadooda say tahay u qaadan lahaayeen maba loo baahdeenba in loo baahdana ma sababtoo arrintana waa arrin Soomaali u taalo weeye waxay ahayd annagu inaanu xallino annagu inaanu doodno annagu inaanu isqabsanno annagu inaanu miska isku raacno ka bacdan aan heshiino doorasho aadnay ahayd ma dhicin xoog iyo waxa yimid iyo beebe iyo maaragtay iyo mataqaana iyo ku darsi iyo waxaasi sharci daradaas keentay markii in dilna la soo farageliyo oo meel walba laga soo qayliyo oo marka iyagu badan habda waxay lahaan jireen kurjeegteen marka anagu aan joognay oo doorashooyinka ay dhacayeen kurjeegteen bay lahaayeen hadday wuxuu dhaqaalaha nagu saaidin karaan doorashadana way sameyn jireen laakiin مسؤولية أنا قاعدين أنا قاعد لهين أنا قاعد برنامج كودني وقتها هدتكون هالشيء بكو أهاين يعني نظام ونكسم بقى أيضا أنا حس شيخ شريف وترتمين لما مجرح بعنين برنامج زركي مدحويني حدنا وحن شيء سكو أهاين ندور الشر دعضه إن متقنا كدرس وآدي كرنا أنا بقى لكن ما لنا آدي ما لنا ربي ما فهمت هل سنة نرسيه الرود ما بقى أيضا كشقينا أيضا إنه كل البرجرين وحول بقى مركا تيجي بنا شدوا كله في الوزارة madaxweyne labadaba tartamaya Xasan Sheekh iyo Umar Cabdirashiid gudoomiyaha baarlamaanka kulli meel ba wada socon dowlad goboleedyadii hal jiha la wada lahaa doorasho in la dalka la aadi intii baa laga firiyay Maxamed Farmaajo iyo inta la socotay intii baa laga waayay dadka aad u taageersan dawladda waxay yiraahdaan xilliga doorashada tii Sheekh Shariif ah ku darsatay tii Xasan Sheekh ah ku darsatay tii Cabdiqaasna kulli waxba socday maxaa gaar ah oo tan lagu ciirsanaya ما أنا قاعد يدنين بهدي مثلا واحد له technical extension فيري تيش حسن سيقاشون شن بلا بقدر سنتي تايدي هل ما لكم قدر سمين شيخ شريف هل ما لكم قدر سمين أغسطس 20 بقى هيد رود ماك برلمان كونوا فرديه أغسطس 20 برلمان كفرديه طبعا كي ستة راح ندورنا مدحوينه لو كذا شيخ شريف قدر سوي حكيت لما ناو تي حسن شيخ شن بلا ذاك واحد شن بلا شيء سلقوي هاي وحلبانadii bay mar hore soo baxeen xilbaanadii soo baxeen oo dib kama jirin hadday wax noocaas tahay 3 bilood 4 bilood 5 bilood 6 bilood yaaba diidanaaba wax diidana ma jirin laakiin boob iyo dhac iyo budo budada tumanaya iyo aniga gudiga qoranaya ana ciidanka ilaalinaya mataqaana doorashada keenaya waxaas hadee waxay u muuqatay doorasho la boobaya taasaa keentay kalsooni darrada kaasaa waqti inuu jiitama keentay laakiin technical extension cidina ma diidana baay waa gartay Cabdiwaliyow dal marka siyaasaddiisa la qiimeynayo waxaa loo qiimeeyaa sida uu u wajaho siyaasadda arrimaha gudaha iyo jaangooyinta arrimaha dibadda dawladdan
shal ra'iisul wasaaraad ahayd mar kastana meel wax ka jiraan qalad wuu dhacayaa adinka laftirkiina qaladaad way lahaydeen markaad barnaamijka hadda ka joogtid maxaa isleedahay waxaasaa dawladdii ka qaldamay oo ay ahayd inay ka faa'iidaysato fiiri madaxweynaha kole haddii ra'iisul wasaare isaga keensaday xasan cali khayre madaxweynaha waa la doortay kalsoonaa lagu doortay meel walba looga mudaharaaday waa la soo dhaweeyey niyad wanaag bay ahayd laakiin waddankaanina waxyaabaha maalan waqtigu kaga dhumay moogtahay waqtigaa inaad wax aan micnaan ku dhumaysa lama rabo political capitalkaaga wax wanaagsan inaad ku dhumaysaa la rabaa madaxweynuhu waqti badan wuxuu ku dhimeeyey federalismka inuu la dagaalamo dowladnimadii dastuurka waa annaga federaal baan nahay waa dastuur waa artikalada aan laga gorgortami karin federalismku in dowlad waxaa laga yaabaa maskaxdiisa inay u dambeysay inuu ku jirtay dowladdii hore oo moogtahay xoogga leh militariga ahayd awoodda lahayd laakiin dowladdaasi awoodda lahayd oo centralized governmentka ahayd meeshana dhigto waan ognahay moogtahay wax hadda aan haynaan ka dhaxalnay marka taa lama aadi karo marka in lala dagaalamo dowlad goboleedyadii la yidhaahdo gobortoraal baan ka dhiganaa nimanka madaxweynayaasha sheeganaya waa isoos keenaynaa xaggaan yeelaynaa war federalismku mas-uuliyaddan waa la qaybsanayaa awooddana waa la qaybsanayaa adigu puntland for example madaxweynaha ka ahaa dee adigu ciidamadooda ma masruuftid oo shaqaaladeed mushaar ma siisid oo caafimaadkeeda lacag ma siisid oo hal bajada ku bixisaa ma jiraan mas-uuliyadda dad baa qaatay baawarka marka waa lagula qaybsanayaa ogolow waa taas taa wey marka political capitalkii waxay ku dhimisay waxaan sax ahayn dabcan dee waxyaabo dowlad kasta oo timaada waxa ay samaysa waa jira oo contribution oo مثلا ciidanka hadda lagu amaanay in ciidanka مثلا yani ciidan mushaarkooda helaan ay mataqaana ciidan oo diyaarsan la dhisay laakiin ciidanka wuxuu noqday ciidan shakhsi marka doon la isticmaali karo loo isticmaali karo marka qaarkood fikir waxa jiraaba oranaya mugtahay ilaa yani siyaasadda laga heshiinayo de ciidanka xoogaas leh inaan ciidaba aysan tabar u ahayn baba dhici kartaba laakiin ciidanku wuxuu ahayd in la dagaalamo shabaab fiiri ilaa maalinta yimaadeen ilaa hadda hal tuul oo xiriir ma garanaysa baydhabo beledweyne kismaayo maxaa la yidhahdaa balcad mataqaana all this waqti aan joogna la xoreeyey ma fahamti inta ka dambeysana xoogaa waxay ku sii dareen dowladda xasan sheekh iyo maanta dee looma kala socon karo jawhar iyo xamar waata dadka lagu leynayo xildhibaanadii hirshabelle lagu leynayay iyo madaxdoodii wasiiradoodii ma fahamti afgooyi lama gaari karo xamar baa canshuurta laga qaadaa shabaab dadka ka qaadaan maxaan faa'iidnay marka 4 sano maxay ku dhammaatay ma goormaa la dhisay ma dekedaa la abuuray ma jeeda baa la sameeyey ya ma institutions baa la dhisay maxaa la qabtay waxaa lagu dhimeeyey dagaal iyo colaad iyo in lala dagaalamo dowlad goboleed iyo in siyaasi la weeraro guriis lagu weeraro la xabadeeyo ma fahamtay intaasay ku dhammaatay intaasoo dadka qaarkood waxay u arkaan laga yaabaa dadkan ka qayliya yani social media waxay u arkaan dowladdii hebel bay cayrisay dowladdii hebel bay cayrisay dowladdii hebel saa ula hadashay wax noocaasa dadka lagu quudiyaa wax jirana maaha wax qabad baa la rabaa qofka wuxuu rabaa caafimaad qofka Soomaaliga ah maanta wuxuu ugu baahi badan yahay biyo amni caafimaad waxbarasho biyo nadiif ah ya buu rabaa maxaa laga qabtay hal iskuul ma dhistay hanoo sheegaan hal isbitaal ma dhistay hal isbitaal hanoo sheegaan maxaa lagu dhameeyey waqtigii lacagtii dhaqaalaha maxaa lagu dhameeyey ciyaal ka qayliya meelahaas in la siisiiyo loo qaybiyo maarad this is nonsense midda kale waxaa la abuuray cancel culture wax la yidhaahdo oo maxay tahay oo ah yani body politicgii siyaasaddii waxaa lagu soo kordhiyey cay iyo aflagaado iyo adab darro oo dadka in laga dhumiyo akhlaaqda laga dhumiyo ayaa lagu soo kordhiyey marka waa wax waqti badan laga qaadanaya in dhibtaa la abuuray oo nala baday in dib looga soo kabto oo dadku wadda saxa qaataan yaaba dhibaataaba waa shaqo la dib la abuuray wey hadda musharaxiinta tartamaysa ama madaxweynihii Sheekh Shariif ahaado ama Xasan Sheekh ahaado ama siyaasiyiinta sida Cabdiraxmaan iyo kaleeta iyo Khayri iyo kale dad badana madaxweyne rabaan shalayna waad arkaysaa 19 February wixii ku dhacay oo laftirkooda qaarkood dagaalkii uu saameyn ku yeesho iyagoo banaanbaxay lagu xabadeeyay
maxaa horta iyaga laga rabaa markii saan ay dhacdo oo dadkii attentionkooda uu kaco oo wadankii cabsi ay jirto oo dhiil ay jirto doorashana la rabo iyaga maxaa mas'uuliyadda saaran mas'uuliyad baa saaran mas'uuliyadda saaran waxay tahay in dadka iyagu mar walbaaba dabcan nidaamkani wixii khalada u samaynayo inay ka hor yimaadaan waa wax mucaarad ku samaysan yahay waa positive wax saxa waay oo inay tosh ku ifiyaan khaldaadka jira oo dawladdu samaynayso si dawladdu uga faa'iidaysato ama isu saxdo oo ay waleexato wadadii ama dadka loo tuso taasoo taa weeye dhanka kale mas'uuliyad baa saaran oo dadka inay mar walbaaba wanaagga ku hagaan baa la rabaa laakiin aysan khaladka marka liidarku waxaa la rabaa dadka emotionskooda inuusan isagu laftigiisu uusan la soconin uusan raacin isaga la rabaa inuu caadifada jiheeyaan rabaa marka hadda caadifada kacday dadkaas buuqay dhibaatada abuurantay in la dejiyo maya in loo jaan energy-gaasi in loo jaana la gareeyo yaa oo loo duwo tog wanaagsan in la raaciyo ayaa loo baahan yahay taas ayaga laga rabaa oo aysan energy-gaasi uusan destructive noqon hadda maalan ciidamaha hadda yani isar fadhiya kuwa gobolla ka yimid waxaa la rabaa kuwaani ha dhowto in la abuuro jawi ay ugu laaban karaan xeryahoodii iyo dhufeysyadoodii ayse ayaga laftigooda hadda ayaga laftigoodii aan laga dhiginin baawar kale oo ha dhowto dhib noqdo laftigooda yani inaan abuurin warlords aan gacanteeda ku abuurin baa la rabaa waxaa la rabaa marka ayaga xataa hadda ciidanka abuurma waxaa la rabaa inay ayaga hoos yimaadaan oo ciidan noqdaan ayaga ra'yigooda iyo fikirkooda ku shaqaynaya la rabaa oo laakiin dhanka wanaagga ah aan dhanka destructive-ka iyo dhibta iyo xumaanta iyo dilka iyo dhaca iyo boobka aan ahayn baa la rabaa waa gartay bulshada laftirkeeda Soomaaliyeed dad oo dhibaato 30 sano ku jiray ahayd oo dagaal ay soo daashadeen maxaa iyaga laftirkooda mas'uuliyadda laga rabaa wallahi dadkan waxay rabaan dadka Soomaaliyeed dad wanaagsan weeye dad wax badan u baahan ma ahaba dad wax badan ka dimaan gareeya oo weydiista madaxdooda mas'uuliyadooda ma ahaba haddii dad noocaas ahaan lahayn sida hadda lama ahaadeenba dadku dad masaakiina weeye ma fahamtay waqtina wuu hay dhibna way haysaa marka waxaa la rabaa dadka in loo dhimriyo kali ah sida wax loogu qaban lahaana in laga fakaro war adiga shalay waxaa la rabaa qofka Soomaaliga ah inuu yiraahdo I'm better of today than 4 years ago maanta ayaan ka fiicanay 4 sano ka hor ma fahamtay berita ayaan ka fiicnaan doonaa maanta rajadaas inay jirtaa la rabaa marka waxaa la rabaa qof kastoo yimaada wuxuu inuu ku kordhiyo dawladnimadaasoo ah mid dadka serve garaysa dawladnimada haddaysan dadka serve garaynaynin dawlad in la hada micna ma subinaysaba dawladda waa ina aniga serve garaysaa individualka qof waa in u shaqaysaa ma fahamtay waa ina rabitaankiisa ku shaqaysaa waa in isaga caafimaadkiisa waxbarashadiisa biyihiisa jidadkiisa nolosha asaasiga dadka waa in la sameeyaa dawladnimada taasaa laga rabaa the government has to deliver to the public dawladdu waxaa rabaa dadka inay u deliver garaysaa la rabaa shalay ra'iisul wasaaraha ahayd madaxweynena dawlad goboleedka ka soo noqotay ra'iisul wasaaruhu mas'uuliyadu leeyahay iyo shaqo qabtay maxaa is leedahay xilligaagi waxaas aniga macna leh oo la taaban karo oo lagu xasuusanaa wax badan baa lagu xasuusan karaa kow horta anigu dalka xoreyntiisa sababtaan kuu sheegay oo waqtiga anigu aan joognay xamar August 6deedii baan ka saarnay xamar shabaabka balcad baan xoreynay oo jubbada hoose oo meesha la yiraahdo Kismaayo Baydhabo beledweyne waataan safar ku tagay waxaas oo dhan waxaan kala dagaalamayna kow waxaan haysatay dadkan lacag bay heleen dhaqaalay heleen waxaan nagu soo kordhay yani the farming majaacadii abaartii adduunka 60 sano oo waxmed baa inaan dadkii badbaadino xiriyo u sameeyno cunno siino waxyaabaha anagu aan qabanay kamid ahay xoreynta kamid ahayd doorashadii dalka 69kiiba wadanka ugu dambeysay doorasho wadanka in lagu qabto waxaan awoodnay inaan ku qabanno inaanu 120 iyo 135 oday isu keenno inaan xildhibaanadii xamar ku xullo lagu doorto taakasokow dastuurkii aniga Sheekh Shariif aanu sameynay August 1deedii 2012kii aanu baas garaynay ayaa weli kor loo hayaa oo 9 sano ka bacdi maxaan ku sameynay draftka u horeeyay waxaan sameynay February 20keedii September baan isugu sameeyay guddiga madaxda ka ah ninka la yiraahdo Jawaari September 19 February 20keeda the first draft of constitution waa haysan April 20keediina draftkii u dambeeyay final draft of constitution ka haysan
dastuur baan samaynay dalkii baan xoreynay doorashaan qabanay hal sana aan ku samaynay intaa maxaa kaloo nala ka firi kara waa gartay xilli ku meel gaar noo baxay kuma garanayn dhaqaalaha hadda ay heleenna dekadaasa waxaa laga heli jiray haddii u badato $700,000 bishii ay bilna $900,000 markay u badan tahay imagine intaas lagu shaqeynay waa gartay maxaa is leedahay Cabdiwali gaas hadaan ahay waxaan ka qoomamayna oo xilligaas ay ahayd inaan sameeyo laakiin dhaafay oo ka qaldamay wallahi halkaas aan wax sax badan baad qabatay aniga ambitionkayga oo qofka waa meeshiisa laakiin maxaan qaban karnay oo aamis garanay halkaas sano wallahi had kuma sheegi karo waxa aan qoomama hadda aan qabo ma jirto waxa weeye waxaan isleeyahay halkaas sano waa dadaasheen waxa qaban karteen waa qabateen iyo waliba dheeraad marka hadda wax hadda idaafay oo inaan doorasho galo oo madaxweyne noqdo waa jeclaan lahaa ma dhicin laakiin taa laftigeeda mar walba waxaan aaminsanahay wixii ilaahay ku garto baa wanaagsan ilaahay hadduu ku garto madaxweyne ay ku wanaagsan tahay waa lagu ducaystaa haddii aysan ku wanaagsan wixii kale ilaahay ku garto wixii ilaahay ku gartaa mar walba wanaagsan sideedaba ma fahamtay adoo ama jeclow ama jeclaan wixii ilaahay ku gartaa wanaagsan wixii ilaahay gartay maanta hadda meesha aan joogaan alxamdulillah ku ahay waxaan soo shaqayn karaa soo shaqay waxaan soo qaban karaa waa qabtay waan ku faraxsanahay waxaan qabtay ama aan qabto Soomaaliya ama aan ka qabto Puntland waxaan isleeyahay waxa wanaagsan baad qabatay alxamdulillah wixii ilaahay igu toosiyay wanaagana waan sameeyay Puntland wax qabad 2 2 3 macno la Puntland ay u ayday maanta waadi aa ka Puntland ayadoo go'doonan u yimid oo hal diyaarado oo jadii meel ka digta aan lahayn maanta waxaan ka soo tagay ayadoo labo airport international caalami leh Boosaaso iyo Garowe kii gaalkacyo aan ka soo tagay waxaan dhan hadda aan sameeyay ama garaacda ha noqoto waxay ahayd yani mashaariicda anigu aan ka ahaa mataqaan bilowgeedii anigu aan sulka ka aabay ahayd wadooyin dalka Garowe markaa imid hal wada ku taalo shaariqa la yiraahdo maantana qofkii taga uu arkaya institutionkii dawladnimada oo dhan oo waxaanu hay'adihii dawladda oo aanu dhisnay ama ha noqoto dhismahoodii ama ayaga laftigoodii nidaamkoodii iyo shuruucdooda ha noqotee ma tirin karo yani haddaad waraysato wakaaladda biyaha Puntland waa kuu sheegaysaa intaan ceel qodnay iyo 30 sano la soo dhaafay intaan qodnaa badnayd aan joogay ama ha noqoto ceel ama ha noqoto waro dadka in la waraabiyo oo biyo yani so many things caafimaad waxbarasho wax badan Cabdiwali waxa la yiraahdaa xilligii Cabdiwali uu wasaaraha ahaa adi muddo aan 2 sano gaarin sanadii beer qiyaastii ahayd Cabdiwali wuxuu ahaa nin rago si fiican xilligaas ka sokow Soomaaliya hadana Puntland ay ugu taagsato wax uu qabanay shaqada dawladnimada taas ka xoog badnayd maxay kula tahay adiga wallahi waxaan leeyahay aniga mid walba niyad iyo wanaag baan ku shaqeynay midan oo Soomaaliyana waxaan qaban karay hal sano oo garan kartaa oo intaan kuu sheegay waa dastuur la qoro doorasho la qabto dalka loo xoreeyo dadka la badbaadiyo oo abaarti ah ka badan ma qaban karin haddaan 5 sano heli lahaa dabcan wax badan ma ka qaban lahaa Soomaaliya tan laakiin waqti baan helay yani waana ka yartahay moogtahay mas'uuliyaduna waad garan kartaa dawlad goboleed weeyo waa ay ka yartahay laakiin anigu Puntland iyo Soomaaliya ma kala jeclayn tan markaan joogso daacada ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed baan ku shaqeynay tan ayada la ii dhaariyay Puntland oo wanaag baan ugu shaqeynay haddana yani hadda xilwan ordaya ma jiro laakiin hadda imudatana Soomaaliya meel kasta oo joogo wanaag baan uga shaqeynay anigu sidee fikirkaaga ama taladaada maadaama aad doorashooyin hore aad ka soo qayb gashay aad leedahay waxaasaan tala aan siin lahaa in doorashada loo wajaho oo doorasho lagu najaxo oo dhammaan qaybaha ay ka qayb galaan oo Soomaaliyana ay ku nafisayso oo xilligan aad leedahay waxaasay sameyn karaan doorasho lagu wada qanacsan yahay كو لبا صدح أها إن الخاضو فيري وكحمها والله بايو وح هدا أرتا كلسون ذي وين ما تهد هدا حلو بينرت كلسون لسدبا هدا دور الشو دتك وطن كلها مدحوين هدا هدي اللي هذا وح الله دورت ما فرماتشو سعادي الله دورت أو فيرن سكوير بكهلي قناعسنا دم جرتو سويت حويه فيري دور الشذا وح مهم إن تهي legitimate شرعي إن تهي إن credible لو قاتين إن تهي acceptable dadku aqbalaan hadii loo hore ay jirto laakiin acceptability aysan jirin dadku aysan aqbalin aqbal dadka ka timaada dadku u arkaan doorashada in la boobay oo la dhacay doorasho ma noqonayso marka hadda kalsooni ma jirto kalsoonidu waxay taalaa dhulkay taalaa waxa loo baahan in la soo dhiso waxayna kaga bilaabanaysaa madaxweynaha marka madaxweynaha wax kula talinaya madaxweynuhu isdaba qabo legacy-gaaga ha noqonin legacy wax ka tagi
dil iyo dhac iyo boob iyo cadaalad darro iyo dalkii oo wado xun aada ha ka tegine oday noqo wixii ilaahay ku 4 sano baa lagu doortay wixii ilaahay ku calfayna waad heli doontaa laakiin hadda wanaag muuji dalkan malfaan u hogaama oran lahaa anigu soo oran shalay xukuumadda uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Farmaajo wasiir baad ka ahayd waa la soo shaqaysay deegaan ahaanna waa isla haydeen isku deegaan ahaydeen aqoon badan u leedahay maantana banaanka ka joogtaa waad u jeedaa dawladnimadii maxaad is leedahay shalay waxaan ka filayo maanta as leedahay madaxweynuhu kama aan helin wallahi wax kasta oo hadda oo iga muuqda madaxweynaha anu kama filayn runtii waxaan is leeyahay haddaan aan wadanigayga kolay dee mas'uuliyadda isaga madaxweynaha dalka ka ah isagana wax laga weydiinaya nin majhuul ah aan la aqoon oo miskiin ma yahay nin mulkiilaha jiro oo dawladda loo meel fadhiya mulkiilaha anagu maana dooran mana naqaan moogtahay qofuu yahay moogtahay shakhsiyan waan aqaanaa laakiin de dadku ma aysan dooran aniga waxaan is leeyahay madaxweynaha waxaa isku darantay gaabis dhankiisa ka yimid iyo talaxumo badan oo la siiyey isugu darsantay laakiin markuu prime ministerka ahaa dabcan geesaan kaga jiray dad badan oo inuu khaldamo diidayana waa ay jireen waxay badan marka prime ministerka ahaa anigu aan ku diidnaa jira aniga iyo wasiir cabdinuur iyo dadkii aan wada shaqaynaynay aan ku diidanayn baa jira aan ogolayn in la sameeyo marka qofkuna moogtahay kama soo harto dadka ku wareegsan moogtahay talaal siinaya kama baxsana marka waxaan is leeyahay in badan I think tala khaldan buu qaatay dad aan saxadiisa iyo legacy-giisa aan danaynayna waa uu wuxuu ka dhigtay umaranaya sokeeyo ka dhigtay marka iyo de gaabis badan oo anagu aan filan dhigiis ka yimid waa u jira sida muuqata ugu dambeyntii dawlad goboleedka Puntland shalay madaxweynaha ka ahayd dawladdan Soomaaliya waa dawlad federaal ah oo dawlad goboleedyadii ay door leeyihiin inta badan waxa la yiraahdaa Puntland iyo Jubbaland waxay caqabad ku yihiin dawladnimadii Soomaaliya dawlad inay dawladii socoto oo shaqo qabato markasta iyaga lagu ku dhaganaa ma aaminsan tahay fiiri su'aashaas dhowr jeer baa la weydiiyay waxa la yiraahdaa Puntland dawlad kasta ayada maxay u heshiin waayaan fiiri horta Puntland muddo kaligeed ayada jirtay dawlad goboleedka jiro oo kaliya ayada ahayd waxa la dawlad kale waxa la abuuray intii madaxweyne Xasan Sheekh uu yimid wala socotaa Soomaa galmudug Hirshabeelle Jubbaland kullu hadda la abuuray horta marka maya awood ma ay salahayn marka cidda kaliya oo magac dawlad goboleed ku hadli kartay waxay ahayd Puntland bay ahayd taas oo taaway waxa keenayay waqtigeedii ay abuurantay oo kaligeed jirtay iyo mas'uuliyad saaran ilaa ayada dawlad goboleedii u hadlaysay ilaa federalismkii wixii midda kale dadku waxa kale maxaa la soo qaban waayay soo waxa tiraahdaa laba dhaxal ku diraysa maxaa suutin lama yiraahdo waxa ka dhaxeeya dadkii waqtahay awoodii baa la isku qabanaya dhaqaalaha la isku qabanaya mas'uuliyadda la isku qabanaya waxaas oo dhan baa imaanaya marka waa la isku qabanayaa kow markay abuurmeen Jubbaland iyo dawladdii iyana hadda madax isla galeen Soomaa waare waa dhageysanaysa waraysigiisii dhibta ay kala mareen iyo isagu maxaa la yiraahdaa Cali Cabdullaahi Cusub lawaati ay tuureen nimanka meesha jooga hadda dawladda ka Sharif Xasan waatay la dagaalameen oo meesha uu ka tagay xaaf waatiid marka wax ku gaar Puntland ma jiraan dawladnimadeennii baa gaamuraysa waxa la baranayaa federalismkii ayaa la kabkabaya oo la isku hayaya oo lagu dagaalamaya marka wax ku gaar ma jiraan marka wax ku gaaran jiraan waa jirta laakiin hadda de kulli waa la iswada hayaa ma wax dawlad goboleed aan la isqaban baa jirta aad baad u mahadsan tahay inta ayaanu guud ahaan ku soo gabagabeynaynaa waraysiga toddobaadka oo marti iigu ahaa Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Puntland sidoo kale ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan magaalada Nairobi waxaan kaaga mahad celinayaa Cabdiweli waqtigaaga qaaliga ah iyadoo Ramadaan tahay sida waraysiga naga qayb gashay xamdi aad mahadsan tahay fursada ay siisay khayr baan ku rajaynayaa Ramadaan mubaarak